marka haddaan wax yar ku soo noqdo arrintii akhuuna Ismaaciil barakallahu fi waladna Ismaaciil waan dhageystay anigu musaabaqadiisii waan dhageystay maadaama aan lajaan tahkiimka aan kamid ahaan jirayna waxaan ku qiyaasay aniga agtayda ay kamid ahayd inuu kow ama laba mid gali doono marnaba uu ka hooseynaya isma lahayn ana waan dhageystay musawiisaan ogaaday faj'atan waxa meeshii soo baxay sheeko kale oo ah ninkii waaba la eriyay wadanka waa laga saaray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar ayaa soo dhaweyn ballaaran ugu sameysay masaajidka uu imaamka ka yahay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi Ismaaciil Cumar Madar oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhawaan tartanka Quraanka uga qayb galay dalka Imaaraadka Carabta isla markaana la sheegay inay saameysay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan dalalka Khaliijka taasi oo sabab u noqotay in dib loogu celiyo Soomaaliya wuxuuna intaasi kadib عسومت كهلي دولة قطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عبد الله محمد علي معلنك إسماعيل مدر ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar uga mahad celiyay sida wanaagsan ee ay u qaabileen. runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Qatar khaasatan magaaladan Dawxa runtii ikraam aanan ka arki jirin yani jaaliyadaha kale ayaan halkan kala kulanay runtii wadamo badan aan tagno Khaliijka yani kamid ah laakiin maanan arkin runtii Soomaalida joogto ikraamka iyo runtii aan kala kulana halkaan oo kale maanan arag jazaakumullahu khayran waan kaga mahad celinaynaa runtii waa wax aanan ilaabi doonin oo yani mar walba niyada aan ku hayn doono wa jazaakumullahu khayran runtii waxaan iraaho kale ma garanayo. Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi oo madasha ka hadlay ayaa Ismaaciil ku booriyay dadaalka uu sameeyay wuxuuna sheegay markii uu qiimeeyay inuu gali lahaa kaalmaha ugu horeeya balse nasiib darro taasi aysan dhicin wuxuuna tilmaamay inay wax laga xumaado tahay in la siyaasadeeyo quraanka Alle. xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay walaalahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan Qatar ku nool زيارة أي نسوي زيارتين هل كأي نقول مادين مساجد كيجا الحمد لله هذا أنه رمضان كي كبحني أيام شوال بانو كجرا وأيام وذا بركيسن وذا خيرة بركات بانو تيجيكم بعدين يا زيارة عند سواب بوقتين بارك الله فيكم. ثانيا وحان سيجارة وسود وينينا إخواننا ولا الذين نصوب بغضي ودن كانوا يمد أخونا الشيخ عبد الله هي تلميذ كيسا أردقيسا إسماعيل وقصاد لوضة سعوتان هجرتي مع المدويد سبب ساس درتيدنا ودنك هالكن ويمد قدر ويمد وحير هدان تعليق غير كبحي أرنتاس حقيقة مركي أي نسوق قاعد أرينا كحما النبي النقطي سببتها دي محافشة إسلامية إيو مسابقات كقرآنية إن أمور سياسية لسود حقلية ما يسنهاي حقيقة يعني قرآن باللي شوي يمد أرضي بقرآن لو ويري مسابقة دبي كدعة ومسابقات ياد راقئة ومال سر كتاج المسابقات كعالمية كعالم كإسلامية
خير فربضنا قدمتي تشجيع يدلين يعني يرجلين واحد أرضنا عالم كمال كتمادة لله الحمد ورت إلهي ومهد له وحان سنة كسته أن ماشى كو أرجنا يملك له سابقات لو سميي سومالي كسو قيم كلي شترتن كاس أو ودمك للدوان كسعته لقي أبا شن لح مرمر طبعا بيجاري أنا ترى ميد ولا بيودن ممثلة وأنا سومالي مركز هذا وحي الكسر النقطة أرنتي أخونا إسماعيل بارك الله فيه ولدنا إسماعيل وان دقيستي أنا مسابقة دي وان دقيستي ما دام أن لجان التحكيم كان كم إذا هاي جرينا وحنكو قياس يعني أكتر إذا كم إذا هاي إنه كو أمر لبا قلي دونه مرنا بوكه حسين يا اسم الحين أنا وان دقيستي مستوي سانو قادي فجأة وحا ماشي صوب حي شيكا كله أو نكي وابا الإيريو ودن كوارا كسار وحفلتي ولا مسفوق لا مسفوقين وما حد داعي إلا waxay ku qotontaa arinta siyaasadda maanta iyo xurgufta wadamadan walaalaha dhexdooda martay marka waa ka xumaanay arintii arin aad u foolxun bay noqotay sababtoo ah dee quraan maxaa soo dhaxgelay sheekadan dawladuhu haysteen siyaasadaha isku khilaafeen ha kala boodeen ha isdagaaleen meeshay rabaan iskala dhaceen laakiin arday quraanka u timid in arintaas lagu saleeyo oo la yiraahdo dawladii aad ka socotay maadaama qadar aynan calaaqada u goynin annagana ku ikraam mayno darajadii aad mutaysatayna ku siin mayno wadanka nooga bax arin aad u foolxun bay noqotay marka horta arintaas wiilka kan uu ducaystayo Facebook waa ku soo leeyga maqashiyay isagoo leh insha Allah wax ka khayr badan baa Ilaahay ka rajaynay sooma wa khalif li khayran minha wax ka khayr badan hadda uu helayo يعني وناقني شهردني سودوينتني ومدي أردنو خير كنت قانيو تاسي وحكا خير بدن بين النقطي ثانيا إن يعني وحن وجد عينينا إن سفارة الصومالية جزاهم الله خير أي هل كان جوكتا كالين توين أي كقاعتين أرنتها سنة دولة قدر أنقذ بيان أو أيركا جبري النقطة جبكي سوقاري يدبكي سوقاري ونوحبك قلبنا إنه دم بكل هاي إن لو كبوا على الأقل لا إكرامه ولا سود ويرجع كشقية دولة قدر وشقي يعني أنا آدي أذوق ما هذينا إن شاء الله تبارك وتعالى سلا سوق عليه يعني نشكر يعني دولة قدر بان آدي أذوق ما هذينا إن طلابا أي أرتاس أي كقاضي أو أن فرق يعني نوح كلاينا هاي يعني أنه مسجد بان جوجنا برنامج كأنه برنامج قرآني هول كله كم جرنو سياستنا وحبنا كم جرين زو ما قرن لكن وحن جعل لها إن أي رسالة قالوا ضد كيساية لي إن فعل كأي سمايين فل ونكسنوا سنهين القرآن كان أرمها سو كله لجنا زهو أو لجنا طهيرو أو أن لسود إحقلين إن رسالة ذا قالوا أيانو جعل لها إن شاء الله هذا كدبنا إن دي أرتها الله ونقول مركا توفيق الله نوافجه إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar Ali Askar ayaa isaguna sheegay inay soo dhaweynayaan Ismaaciil iyo macalinkiisa wuxuuna ka dhawaajiyay midnimada ka dhex jirta jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Ismaaciil mar labaad anigoo ku soo dhaweynaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dooxa Qatar waxaad dhex joogtaa dad midaysan oo walaalahaaya oo maxaan ku leedahay jaaliyad mid qura ah safaaraddeedii oo isku xidhan ilaahay idankii guul weyn baad gaari doontaa guusha aad gaari doontana waxaan ku leenahay waa inaad maxaan ku leedahay ilaahay idinkiis aad waxa culayska aad sido mas'uuliyadda waa inaad mid weyn qaadaa sidii ummadaada aad wax ugu kordhin lahayd oo ilaahay idinkiina ilaahayna inagu wada guuleeyo hadalkayga waan dheereeyay intaas aan ku soo koobayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqahayna waafajiyo si kastaba ha noqotee
ismaaciil ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si weyn uga faallootay warbaahinta soomaalida iyo weliba kuwa caalamka kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in laga saaray tartankii qur-aanka xilli aan la shaacin natiijadii. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warbixin kooban oo aan uga hadlaynay soo dhoweynta jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar ay u sameeyeen Ismaaciil Cumar Madar, waxaana idiin soo jeedinayay anigoo Axmed Darwiisha. tan iyo kulantii dambe, nabadiino.